mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xaafad cusub oo la magac baxday Euro oo ka mid noqotay xaafadihii hore uga jiray magaaladani Burco xarunta gobolka Togdheer isla markaasina ay dhisan doonaan qurbajoog u dhalatay gobolkani Togdheer. xaafadan ay maanta sida wada jirka u dhagax dhigeen mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ayaa dhismaheeda ay iska kaashan doonaan ilaa 300 oo qurbajoog ah oo u dhalatay gobolkani Togdheer, waxaana shaaciyeen qurbajoogtu inay u furan tahay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhismaheeda iyo waliba iibsashada xaafadan Euro ay ku soo dhaweyn doonaan. waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Faarax Cilmi oo ay xaafadani u soo wakiisheen qurbajoogta u dhalatay gobolka Togdheer, waxaanu halkaasi ku dheeraaday ujeedada ay qurbajoogta u dhalatay gobolka Togdheer u dhisan doonaan xaafadani uguna soo biiriyeen xaafadii hore uga jiray magaaladani Burco. ayaa jiro xaafadani dhinaca ku hayso oo ah dhakhtarka iyo iskuulka ani waxbarasho iyo dhakhtar. sida daraadeed waxaan u sheegayaa qurbajoogta in xaafadani inta ogay intaan ogaanba qof kasta uu ku qanacayo xaafadan Euro Village dhul ahaan qiimo ahaan iyo goob ahaanba qof kastana ay dhiri u gelinayso fursadda uu siinayso. sida oo kale qaar ka mid ah qurbajoogta ku soo guriya noqotay gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen ka tacliinta ka maqnayd caafimaadka waa maqnayd labadiina solution baynu u helay waxa uu haray dadkii iman lahaa toon ku hambalyeynayna ila decision ka fiican gaadheen tii waan soo dhaweynayna dilay kan charbaan nahay xaqoonu isagu nugu leeyahay dheeraada marka waan iska warhaynaa door wanaagsan waanu insha Allah ka ciyaari doono. waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo una mahadnaqo qolooyinka arinta fulinaya. waxaan leeyahay arinta qolada qurbajooga waan la hadlayaa, waxaan leeyahay arinka siday tahay looga qayb qaato. gabagabadii waxaa halkaasi hadalka iska daba maray mas-uuliyiinta gobolka kuwa degmada taliyaha qaybta booliiska gobolkani Togdheer iyagoo dhammaantoodba halkaasi uga mahad celiyay qurbajoogtii isku hawshay inay xaafad cusub ku soo kordhiso xaafadihii hore uga dhisnaa magaalada Burco, kuna ammaanay horumarinta iyo bilicda ay la daba joogaan gobolkooda. faraxsanahay inaan ka soo qayb galo halkan laga dhisayo maanta xaafadan ee jaaliyada Somaliland ee reer Togdheer ay ku dhisayaan dhagax dhiga xaafada Euro ee Village aad baan ku deegaan ahaan u soo dhaweyn 300 oo guri inay imka diyaar yihiin anagu waan soo dhaweynaa aad iyo aad ka dawlad ahaan iyo ka deegaan ahaan baan soo dhaweynaa wali waxyaabo badan baan ugu tacalluq doonaa hadhowto oo aan fududeyn doonaa. waxa weeyaan waa wax aad loogu farxo Burco maanta halka maraysa oo dad u dhashay qurbajoogaha ay u soo guureen dooneen gobolahan waan soo dhaweynaynaa wixii tasiilaad ah nooga baahataan gobolahan diyaar. waa Burco Qaadan Maxmed shabakada caalamiga oo Dadweyne News magaalada Burco.